macanka wadutaysatee emaradadami qaraariyo yahay macanka wadutaysatee بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkani waa voice of Oslo oo aad ka dhageysanaysaan muujada 99.3 Oslo waaxigeeda halka caalamkiisa kalena naqastaan website-keena voiceofoslo.com meel kastoo joogtaan iyo si kastoo ay maqsaanba anigu Cabdi Maxamed Aadan Midnimo ayaa barnaamijka idaacadda idin daadinaya barnaamijka si toos ah waxa uu idinkaga imaanayaa idaacadda laanta afka idaacadda voice of Oslo waxaana maanta ka doona daalino barnaamij gaar ah oo taxan noqon doono oo arrimaha bulshada ah oo aan kaga hadli doono doorashooyinka dalka Norway ka dhici doonta 13 bisha September sanadkan 2021 xisbiyada kala duwan ee dalka Norway waxa ku jira dad Soomaaliyeed oo kala duwan ayaa ku jira xisbiyadaasi marka haddii aan leedmo qaybta maqalka iyo qaybta muuqaalkaba waan ku wici doonaa haddii aan leedmo anaga markaasi aan weydiin doono bal xisbigooda waxyaalaha uu ku soo kordhin doona haddii ay doorashada ku guuleystaan iyo waxyaalaha ay u qaban karaan dadka Soomaaliyeed ee degan dalka Norway barnaamijkaasi guud ahaan waxaa soo dabriday anigoo Cabdi Maxamed Aadan Midnimo iyo Xalwo Cali oo idaacadda Voice of Oslo barnaamijka soo saaraha iyada ka ah maanta ayaa barnaamijkaasi idin daadin doona haddii aan leedmo sidoo kale barnaamijkan waxaan ku wareysan doonaa dad iyaga muhiim ka ah bulshada Soomaaliyeed sidoo kalena waxa ay ka tirsan yihiin xisbiyo kala duwan ay ka tirsan yihiin bal su'aalo dhowr ah ayaan u bandhigi doonaa haddii aan leedmo inta aan marka su'aalaha u gudbin waxa aan marka hore ku wareejinayaa wariye Xalwo Cali oo idilta barnaamijka qayb ka ah oo wariyaasha idaacadda Voice of Oslo ka mid ah marka hore aan soo dhaweyno Xalwo ani adiga waan soo dhaweyno Maxamed Dalmar Shirwac aan soo dhaweyno soo dhaweynta waxa noo qaabilsan Xalwo soo dhaweey Xalwo ما شاء الله أدبر ما هسنتهاي وري منما وسيدا وشاقي داود يال لقيستيال وري منما سيدي عادي هاد مالين كستو أحد وحنوغا برهتين إن أن لايف صوغلنا برامشيدا كلا دوان أرمها برشادنا أيدين سو قدبينو سيدو كلا waxyaalo badan oo muhiim ah aan idin la wadaagna dabcan maantana waa sida uu sheegay وري منما inoogu dahfur barnaamijka waxa marti inoogu ah محمد دلمر شروع oo ka tirsan ama kamid ah dadka markaasi xisbiyada kala duwan ku jira ee Soomaalida ah ugu horeeyna waxa soo dhaweynaa Dalmar anigoo ka hor dhicin isaga iskiin bari doona xisbiga uu ku jiro iyo sidoo kale aan maxay ahaday waqtiga uu ku biiray iyo guud ahaanba Dalmar Shirwac soo dhawo ku soo dhawo Voice of Oslo aad baan kaga mahadcelinayaa walaalahayga mutaqarriga Oslo waxa weeye interview waxa iga daran inaan carab ku dhufto intaan sugaynin interviewga muusiga la ii shiday wuxuu igu celiyay dugsiga hoose dhexe marka Soomaaliya ka dhiganaya marka aad baan iga mahadcelinayaa maxamed way caadi marra ma waxa weeye aad baan muusiga aan tabay ayaa shiday waxaan u maleynayaa dad badan oo dhageysanaya inay ku raaxaystaan man aad u rajeynayaa aad baan kaga mahadcelinayaa labadiinaba chance-ka ay siiseen maantay oo aan isku barano oo igu weydiinaysaan maxraadada kala gedisan iyo mawduucyo kala gedisan aniga waxa la yiraahdaa Maxamed Dalmar Shirwac Dalmar baan la yaqaan wadanka Norway waxaan deganahay wadankan ilaa laga bilaabo 96 kii baan soo galay ilaa hadda waxaan ku jira ilaa iyo 20 sano dambe waxaan ku jira xisbiga shaqaalaha aan xisbiga loo yaqaan Arbeids Partiga waxaan ka joogaa waxaan ku jira biistiiraha ayaan fadhiyaa magaalada Kristiansand waxaan kaloo xubin ka ahay guddiga la dhawan taqaana helsa oo mastering ama guddiga caafimaadka oo 12 qof oo 110,000 go'aamiye caafimaadka waxaan kaloo mas'uul ka ahay ama steer leader ka ahay urur samafala oo la yiraahdo forum for integrating or dialogue agdar oo labada gobol oo southka daboola oo ku xiran wasaaradaha dawladda iyo localka
waxbarashadayda waxa weeye international politics Pekin ayaan xilligii barasamaadkii dhalinyarada waxaan ahay mooska iyo qoryaha hooyooyinku mataqaana ku gadaan suuqa wax lagu soo baray xaq badan bay igu leeyihiin Soomaalida gaar ahaan marka waxa weeye su'aal inaan sugayaa inaan ka hor dhac ma rabo waa dhowdahay waayn aad idin salaamaya waana mahadsantiin adiga mudan waxaan ku weydiin rabay xilliga aad ku biirtay xisbiga Arbais Partiga ama xisbiga shaqaalaha iyo waxyaalaha kugu kalifay inaad ku biirtay xisbigaasi xisbigan waxaan ku biiray adigu qiyaastii 2002 baan ku biiray xilligaas oo mataqaanaa runtii aan hore ka bilaabay inaan fahmo waxa igu kalifan waxa weeye anigu waxa weeye dadku xisbiyada dhowr nooc ugu biiran qaar waxa weeye waa isaga biiraan ayuu aan ogeyn xataa waxay ugu biirayaan qaar waxay ugu biiraan interest ba mataqaanaa iyo waxay aaminsan yihiin waa sida mataqaanaa xisbiyada waa sida diimaha oo kale almost sababta waxa weeye waa inaad ogaato waxa xisbiga uu aaminsan yahay waa inaad ogaato badiga uu aaminsan yahay waa inaad ogaato mataqaanaa meesha ku wado haddaad faras ka socdo iska fuusho deegaanka u socda oqeeyay meesha ku meel waalan ku gelinayaa Soomaa si faraskina Cabdullaahi Xasan oo kale marka waxa weeye xisbiyada inaad fahanto horta faraskan fuushan xaga u socda marka ururka shaqaalaha waxa weeye waa badigiisa ama waxba aaminsan waxa weeye wadanku siyaasadda wadanka Norway ama Yurub waa laba qaybood weey macnaha hobad bunta inaad fahantaan waxa weeye midig iyo bidix marka midig iyo bidix waxyaabaha shaarab bunta waxay dhahaan waxyaabaha ku kala gedisan yihiin inaad fahanto way marka hore mid waxa weeye dadka danyarta dadka shaqaalaha dadka mataqaanaa dism city health package ecoon ay gacan u fidiyaan waxa weeye horjooganimaysa macnaha waxa weeye dadka yaacaya maradoonka u cararaya ayaa la isla sugaasay ku dambe ay u soo gaaraan muhiimadu ma kulli hal mar in la wada qaado madaaliyada Olympiga laakiin waa in isku dhawaado marka siyaasaddan waxa weeye inaan qofna laga tagin qofna u kaliya uu madaaliyada qaadan maalin walba xisbiyada midigta marka waxa weeye hal qof ama laba qof ama 10 qof ay waxa laga yaabaa madaaliyaha kaliya in loo qaybiyo anytime every year marka muhiimadu waxa weeye inaad fahantaan labada xisbi waxay kula gadsin waaweyn macnaha xisbiyada labada block midigta iyo bidixda mid wuxuu u dareenayaa dadka danta yar معناها dadka taajiriinta kaliya dhinaca kale dabcan ku jiraan dabcan laakiin dadka danta yar oo ardada macallimiinta shaqaalaha guriga dhisaha baqaadka shaqeeyaha kabacseeyaha daarta ku daarta inuusan jirin macnaha dadka danta yar waa dadka way dadkan ka warqabno xuquuqdooda u ilaalino u mataqaan u dagaalano arbas yiberka dhinaca ma joogo shaqasiyuhu wuxuu joogaa midigta marka waxa weeye haddii aadan yac ka oran qofka shaqaalaha shaqasiyaha waxa weeye مشاكل كردينيو فسعوا كو يارين متقان اوفرتيدك متقانا بطالق ما سمينايو dadka burka la dul taagan waa xisbiga bidixda way wadanka yurma smith waa gartay sharaxaad guud inaga si muhiimadda ay leedahay doorashada iyo sababta loo dooranayo xisbiyada ama xisbigaagaba wallahi horta waxa weeye waa su'aal muhiim ah muhiimadu waxa weeye Soomaalida wadankan joogta ama Yurub joogta aan doorashada qof kala doorto waxa weeye qof waxa siinaysa credit ba siinaysa Soomaa hadda waxa weeye wax ka soo qaada qaabka wax loo doorto waxa qof marka doorasho ku soo baxdo waxa weeye waxa haystaa mas'uuliyad ku saaran oo shacabku doortay macnaha waxa weeye qofna kuma soo xambaarin oo kuma goyn kursiga laakiin cod shacab ku fadhida cod shacab baana kaga dagaysa waxa weeye waa muhiim qofku inuu isticmaalo codkiisa oo you can make differences ma fahamtay waxa weeye haddaad codkaaga isticmaalin gaar ahaan waxa maalmaha waxa idin soo dhacay dadka na dhageysanaya guud ahaan dadka nagu xiran oo dhan waxaan u sheegayaa Soomaalida oo wadanka Norway joogta waxa idin soo dhacay kaarkii waxa mataqaana cod bixinta idin soo dhacaya wuxuu kugu soo dhacayaa meel bukaskiina ama wuxuu kugu soo dhacayaa guriga toosan kugu soo dhacaya marka waxa weeye idin soo dhac kaarkaas waxa laga yaabaa dad badan oo idinka kamid ah inuu jikada iska saaran yahay oo hataa 13 September marka la dhaafo wali uu jikada sii saaran yahay oo hadda marka winter la gaarana dabka la shidaayo qoryaha hataa lagu dhex daro caynka ma codkiinu it's accountable waa in lagu xisaabtamo noqonaya hadda waxaan ogahay dadka wadankan cusuriyiinta oo Soomaalida raba inay basas iyo tareena ka saaran wadankan dad Soomaaliya cod ka siiya macnaha ula kacan uma siinayaan ma oga ninka dilaya inaad ulbura oo ka culus ugu dilo inta ka qaado tanyar aad u dhiibto macquul maaha waa inaad marka codkiina isticmaashaan oo u isticmaashaan siisaan xisbiyada u dagaalamaya xuquuqdiina ilmihiina u dagaalamaya waxbarashada ilmihiina u dagaalamaya shaqada u dagaalamaya right xuquuqdiina u dagaalamaya
waad xisbiyada codkiina ku biirisaan weeyaan ma aha dadka dhibka idin geysanaya oo mataqaana aanay rabin integrating kasoo horjeeda sinaanshaha shacabka mataqaana raalli ka ahayn codkiinu waa inuusan aadin dhinacaas wey waa gartay waxaan ku weydiin rabay marka bulshada Soomaaliyeed maxaad u qaban kartaa haddii ay ku doortaan maadaama cod u baahan tahay ka sokoona adigu waxyaalaha aad u qaban kartay shakhsiyadaada maxay noqon karaan waa mahadsan tahay wallahi muhiimaddu waxa weeye haddii lay doorto macnaha waxa weeye chance aan hadda shacabkii wax inta u qabtin ka badan bay yaan gaarsiin karaa sababta waxa weeye hadda anoon macnaha parliamentary local ah golaha deegaanka laga soo doorto waxyaabo badan baa Soomaalida u qabtaa macnaha codka la siinayo inaan soo galo siyaasadda aan ku jiro inaan ku jirin maaha waxa weeye qof kastoo Soomaaliya waa ambassador mas-uuliyad baa saaran marka kaliya maaha inaan baarlamaanka Norway aan fadhiyo ama golaha deegaanka laga soo doorto ama guddiga caafimaad guud waddanka aan ku jiro ama siyaasadda aan xubin tahay ma aha inay ku xiran tahay inaan shacabka u qaban iyo inaan u qaban taas point maaha waxa weeye anoona xataa aan siyaasadda ku jirin xataa bataatanba ayaa ilmahayga soo celiya ilmahana soo celiya oo la dagaalama shaqadan dadkayga la raadiyaa ka dhiban baan saacidaa waa ka warqabaa macnaha waxa weeye qof kasta waxa saaran mas-uuliyad Soomaalinimaa saaran marka ma aha keliya cod bixin in qof la siiyo laakiin waa in qof walbaba meesha uu joogo uu ka qabto si waddankeena mataqaanaya ummadeena shacabkeena ay u hagaagaan maasha Allah aad baad u mahadsan tahay dalmar haddii lagu soo doorta isla xisaabtan diyaar ma u tahay wax la yiraahdo accountability والله accountability waxa weeye waddankan joogno alxamdulillah waxa weeye accountability waa baahanaba sababta waxa weeye waxa laga rabaa waxaad qabanaysid you have to do your heart wadnahaaga in ka soo go'do taasaa muhiim ah macnaha waxa weeye shaqada waddanka shacabka u qabanayso Soomaaliya waxay tahay waari maysa wara ka haro waxa weeye noloshu waa qor isku dhiib maamulka Yurubna waa qor isku dhiib ma aha qof mataqaana Soomaalida waxa weeye jaranjarta waxa lagu furaa siyaasadda mataqaana jaranjar saqafka horumarku tagara janjarta kor sii qaataan si mataqaana xataa dadna xataa uusan u soo fuulin wadamada Yurubsaas maaha waxa lagu siinayaa credit baa lagu siinayaa accountability kaarkaas waxa weeye haddaad gubto iyo haddaadan gubinba waa soo celinaysaa albaabka soo garaacaysaa marka waxa weeye waa inaan baranno qaabka qor isku dhibka siyaasadda macnaha waxa weeye meesha hadda fadhiyo macnaheedu ma aha next 4-5 years 10 years la fadhinayo wiil Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed oo caawa magaceeda aqoon walaashay walaalkaya ayaa boos ka imaanaya marka anigu waxa laga rabaa inaan u sii gogol xaaro oo aan qodxa u dhigin oo ay noqoto mataqaanaa meel asagu uu arko meeshaan joogay dadka la shaqeeyay ay ku faaraan aniga ay dhahaan ninka qof fiican buu ahaa shaqo fiican buu ummadayna u qabtay shaqo fiican buu shacabku u qabtay contribute fiican buu sameeyay that's enough for me aad baad u mahadsan tahay dalmar waxaan rajaynayaa af Soomaaligana waxaad ku hadlaysaa af Soomaali pure ah in dadka ay si fiican ku fahmi doonaan ayaan rajaynayaa markaan ka soo laabano isla xisaabtanka iyo waxyaalihi kale oo aan ka soo hadalnay bilowga waxaad ka dhawaajisay dadka in ay fahmaan kala duwanaanshaha xisbiyada si ay u doortaan waxa iyaga danta ugu jirto marka aad aragtid xisbi kasta ama dadka matala xisbiyada markay hadlayaan waxay dadka ka dhaadhiciyaan amaba aad markiiba ka dareemi kartaa in uu yahay xisbigii saxda ah xisbigooda waxyaalaha aad ku kala duwan tihiin ama dadka ay idinku kala garan karaan ama ay waxa laga yaabaa gaar ahaan waliba dadka Soomaalida ah inta badan ma nihin dad wax aqriyo waxaana la yiraahdaa waxaan nahay oral society waxaan dhageysanaa waxa la yiri waxaan dhageysanaa waxaan daawanaa qofka xisbiga ku jira ee siyaasiga ah marka waxyaalaha cad ee hal iyo laba iyo saddex la taaban kara ee aad ku kala duwan tihiin ee dadka idinku dooran karaan markay noqoto xisbiga shaqaalaha ama aan iraahdo guud ahaan dhinaca midig iyo bidix aad ku kala duwan tihiin maxaa la oran karaa anaga waxa weeye horta Soomaalidu waa run xal oo saa sheegtay walaal waxa weeye Soomaalidu dhinaca siyaasadda waxaad ka arkaysaa qaabka Soomaalidu siyaasadda u fahmeen waxa isdhaxyaa waxa weeye qof kasta oo Soomaali waxa weeye waa politician caalamku saas maaha takhtar qofka waa takhtar siika beerka qofka waa siika beer kan guriyaha dhisa waa guriya dhis kan mataqaana ku fiican alwaxjarku waa alwaxjar that's what's counted professional laakiin waxa weeye inaan kala fahanno siyaasadda waxa weeye waa qaabkaas weeye waa qaab la rabo in lagu gaaro vision aad ku gudbinayso macnaha idea iyo mataqaana goal inaad dhaliso goolka waxa weeye ama dhalin ama dhalin laakiin waxa weeye
وإناد مول setting على هاي معنى goal أد هيكسنيسو أو شعب كاغا يو مدة هذا يو تكاغا متقنا أد كوجوليسو إناد جاري سنتاوي سوالي مركان كتصالحان وهي قانان حيوانك نول برواجو وما يك سجارة سبتها سجارة خطر معها لباحة وعوان تذكر عناية مع لكن سوالي أنا فهنا وحسبية كتير يوروب أما نور كتير وأساسه كله وحوي سو فعلي كان بار حسبية واحد كتير عن ربين تذكر شعب كا أو أجنبي جا أو ودن كان ودلان إنه ودن حبكة قبصان طبعا هو الويتاس مركو حاول ربا إنا فهنو حسبية سوكر قدسين ومهم قاربة درواية قاربة اللباحية قاربة هبين كجورة قاربة الكدر درله قاربة قنوات شو قروح بدين شعب كهرباء مركو حوي إنا فهنو لا بدأ حسبي بدأ بلوكار أورك شغالها وحوي أربس بارتي وحسبي دونية أورالكا إن تذكر أجنبي أي متقنا شقدي لوفرو حقوقه لو عليو الموضوع متقنا لساعده تذكر اللي كستيري مر هالك النهي تذكر السنادان قفوا متقنا إن رتها وهلو إن حقوقه هذا لا متقنا الوجود دفاعه أن واجب حكو سارن ودك حقوق سنا إلى لسه هذا شرعي دي إلى لسه متقنا بريكت باكو سارن هذا بريكت كسب بحضه رتها كان وديسن كرتا ما أنت نشكو حيدا متقنا يوردن بريكت كريفر دين متقنا إن رت marka xuquuqdaada mataqaana xaqaa leedahay waxaad ku weydiisan kartaa adoo ka soo baxa kaalintaada marka xisbiyadan gaar ahaan waxaan ku dheeraaday labadan block hoyre oo Venezuela labadan block baan kula dheeraaday macnaha xisbiyada laakiin aan xisbina waxa weeye waa xisbi doonaya in dadka ajnabiga ay xuquuqdooda helaan shaqada laga saacido ilmahooda mataqaana ay dadka mataqaana la tartamaan dadku mataqaana la toorin la noqdo mataqaana shacab siman point كنا حسبنا وكاسوي أما صنت ما شاء الله أدب ما سنتهاي أن دلمر طبعا أدب نقول فرحسنا هاي أنا ورثنا قف أن أخون أنت هلاك أما علمي أنت هلاك وله مركز نقطة أن ودن كي حسبي دي يو مركزي أن ضدك أوقف إيدين كرو أن قولها deegaanka ama markay noqoto doorashooyinka wadanka laba qayb ayaa loo kala qaadaa oo kala ah qayb marka la dooranayo deegaanka iyo qayb madaxda sare la soo dooranayo sida doorashada hadda aan galino kale waxa laga yaabaa marka dadka inaysan inta badan ku baraarugsaneen hadda yaa la dooranaya ama yaa wax dooranaya ama yaa dooran kara marka dadkeena soo galootiga ah waxa jira dad ay u codeyn karaan iyo dad aysan u codeyn karin tusaalaan hadii kaba soo qaad anigoo kale wali baasaboorku in maan qaadan waxaan ku joogaa wadanka maxay deganaansho sideedoo kale dadka ah yay u codeyn karaan goormayse codeyn karaan sidoo kale guud ahaan markaan soo qaadan ama dhalinyaro badanaa jira wadankii wax ku barto ku dhashay iyo dad aan wali wadankii cilmigiisa fiican u garanayn laakiin xuquuq leh ee haysto sharcigii ay ku dhacsan lahaayeen xuquuqdooda marka yaa wax dooran karo وصح horta waxa weeye labada doorasho oo golaha deegaanka communal valg waxa dhahan iyo national valg oo students valg waxa weeye 4 sano mar weeye labada dhinac 4 sano waxa soo horeeya communal valg soo horeeya waxa ku xiga 4 sano waxa ku xiga national valg oo students valg markaas waxa weeye mudsat ma markaas communalka soo horeeya waxa lagu afshilteeyaa students valga marka communal valgaha waxa cod ka bixin kara qof kasto oo haysta gaansho ana qofka mud gaansho haduu haysto local waad bixin kartaa localka codka waad siin kartaa waad bixin kartaa xisbi kasta oo cod laga bixin kartaa marka hadii national valga uu noqdo maadaama uu students valga yahay waxa weey wadangana uu yaraan joogto 7 sano passport guudana aad haysato markaas aad bixin kartaa codkaaga aadna gaartay 18 sano وكراف وي قف 15 جير ama 12 جير ama inta ku dhashay dhur jir ha ahaado ama Soomaali ha ahaado ama qof wad nationality haysto ma bixin karo codka 18 jir haysta Norwegian ka dhalashiisa codkaad bixin kartaa taas waxaan markaa ii dheer xisbiyada waxa weeye codka haddaan ku noqdo kaararka doorashada waxaan ka codsanayaa marlabaad iyo markoowaad iyo labaad iyo saddexaad inaad codkiina uusan noqon mid gala haanta lagu shaqo qoryaha oo aad isticmaashan taasaan aad iyo aad mutaqana ugu dheeraanaya runtii waxa weeye waa muhiim in codkiina aad mutaqana isticmaashan tusaalan maxaa u soo qaadayaa Soomaalida joogta Oslo waxaan qiyaasiyaa 70% Soomaalida wadanka degan Norway waa reer Oslo haddii codkiina aad isticmaashaan Oslo kaliya 4 sanaba
golaha deegaankana waad bedeli lahaydeen golaha nationalkana waxba mataqaana ka bedeli lahayd macnaha waxa weeye 20,000 oo Soomaaliya oo reer Oslo degan codkooda haddii la mideeyo aan hal meel aadaan can you imagine حتى siyaasadda waxa weeye waa influence maaha codka la bixiso laakiin waxa weeye inaad influence ku samayn karto siyaasadda macnaha waxa weeye meelaha hadda ina ka muuqan Soomaaliya reer Oslo waxay codkiinu ma mideysna mataqaan xooggiinu ma mideysna afkiinu ma mideysna lugtiinu ma mideysna 30,000 meel degan xisbi kasta idin imaanaya ma fahanta xisbi kastaad ka heli kartaan position walba iyo dan kastoo Soomaalida lagu difaaci karo xuquuqdooda caruurta baanaha shaqo la'aanta dadka dariiqa iska fadhiyo malaayiinta aan ku arkay mataqaanaa suuqa Soomaalida aan ku arkay oo rafaadsan anoo weydin ma arkaya hadda dadku rafaadsan yihiin waxaas waxa weeye qof kaliya ma samayn karo waxa weeye si qaran ah oo dawladda loo maro oo maamulo siman oo midaysan oo cod mataqaanaa shacabku soo doorto istiira leh oo one voice leh ayaa mataqaanaa hilibka lagu soo goyn karaa laakiin taasna waxa weeye xataa siyaasadda baarlamaanka iyo lokaalka influence culus baan ku samayn karaa Oslo iyo gaar ahaan Oslo xataa gobolada hada waa gartay runtii barnaamij aad iyo aad muhiim u ah ayaan bishan inta ka harsan doorasho la gaarayaan qaban doonaa dad kala duwan ayaa soo fadhiisan doona haddii aan lidmo oo markaas xisbiyada kala duwan ka mid ah waxaan ku weydiin lahaa dalmar dhalinyaro badan uma bacsan ayaan aragnaa haddii ahaan leh kuwa gurbiyada isbacsada oo markaasi iyaga iskuulaadkiina ka tegey da'da 18 ka hooseeya oo meelaha ordahayo oo intooda badan marka shaqo aaday rabaana shaqooyinka lagu eedeeyo inaanu maxay ahayd inaanay shaqayn karin maadaama ay criminal yihiin haddaba waxaan ku weydiin lahaa adiga shakhsiyaantaada dhalinyaradaas baabacsan oo xag waxbarashada ka saaqiday dhinaca gurubeynka waxaan rabaa inay kasoo baxaan rabaa inay shaqayna bilaabaan idinka ka xisbi ahaan maxaad u qaban kartaan horta aad baad mahadsan tahay walaalkay marka muhiimadda ugu waxa weeye hadda xaaladda aan ku jirro kuwa jirtaba arrimahan oo dhalinyarada waa arrimo runtii aan personally aan xoog u saaray gaar ahaan goboladan southka weli xal waa la socotaa aan qiyaasi ah gacan qabasho badan oo dhinaca waxbarashada ah dhinaca mataqaan wacyigelinta ka warqabkooda mataqaan dhalinyarada boos meel isku yimaadaan oo modern oo casri ah oo guryo ah oo technology laho luqadii Soomaaliga laho tii dhaqanka laho tii diibaha leh ayaan kristaan san uga sameynay oo macnaha very popular marka muhiimadu waxa weeye hadda dad wadankan hadda aan joogno iyo caalamkaba waxa weeye waxyaabaha qofku mataqaanaa lagu xiro waxa weeye uusan ka gudbi karin waxbarasho weeye qof aan skills lahayn oo waxbarasho lahayn waxa weeye waa qof aan shaati fanaanimada qaban qaawan weeye marka waxa weeye arrinta ka hadlayso walaal waa muhiim sababtoo waxa weeye dadkeena dhalinyaradeenna waxa weeye waa generation berri qaban lahaa xukunka Soomaaliya weeye iyo xukunka wadankaanba ka qayb qaadan lahaa marka dhalinyaro aan waxba qabsan oo aan dream lahayn oo aan lahayn mataqaana goal aan lahayn khatar weeye waxaan ognahay dhalinyaro badan inay ku jiraan xabsiyada Soomaaliya aan ognahay waxaan ognahay dhalinyaro badan mataqaana inay suuqa iska wareegayaan oo dadka telefoonada ka qaataan si Soomaaliya kale oo mataqaana ay qaryoon baan ognahay waxaan ognahay kuwa casri darogada ku jiraan ognahay waxaan ognahay kuwa hoblos waxaan ognahay gaangiisriyaal baan ognahay ilaa 13 sano 14 sano dad oo gaaris reer Oslo oo mataqaana beerta ku jira arrintaas marka kaliya ilmaha kaliya maaha waxaan rabaa waalidkii aaw booskii waalidiinta aaway aabba aaway walaal aaway hooyo aaway adeer aaway markaas waxa weeye haddii aanan laisku xirayn oo aysan wacyigelin jirin oo aysan jirin maamul dowlad la xisaabtamo aysan jirin oo adinkii mataqaanaa isku xirayn arrintaas waxay u baahan tahay Soomaalidu waxay tiraa farkii foolma dhaqdo waxay u baahan tahay in Soomaalidu ay tashato ay meel iska wada soo jeediso danaheeda hal doon baan saarnay meesha waxa weeye marka Yurub la joogo ama Norway la joogo calamadan Premier League oo Soomaalidu iska wadato Koonfurland Somaliland Puntland oo mataqaana ciyaari Ingiriiska halkan kama jirto halkan hal luqad baad ku hadashaa hal diin baad wataa hal kalar baad leedahay that's all marka in Soomaalidu ay samaystaan dallad Soomaaliyeed oo ay doortaan shacaba oo matala oo ilmahooda iyo dantooda iyo u dagaalamo oo u celiya waa muhiim waa gartay dadku iyagu dhalinyarada ah waxbarashadii iskuulkii dugsiga dhameeyey jaamacad soo dhameeyey weliba waxbarashadii ka dhinac loo diray inay qaataan waxyaalaha loo yaqaan laalin loo diray oo inay dib maxamed 2 sano sanad ay soo shaqeeyaan loogu talagalay ama waxyaalihii ka maqnaa ay ka maqan tahay macnaha maadaama buundooyin fara badan ay ka luntay
sanad dugsiyeedkii imtixaankii laga qaadahay dhalinyaradaasi intooda badan waxay ka cawdaan markay ay soo dhameeyaan oo ay soo dhamaystaan waxyaalihii loo diray inaanay mar kale fadhiisan karin kuwaasi bal mar kale dib ugu laabo kuwii hore waxay ahaayeen kuwa waxbarashada ka saaqiday kuwa waxbarashada way soo dhameeyeen laakiin dhib kasta waxa weeye markii ay wax walba laga rabay soo dhameeyeen oo rabay inay fadhiistaan college ama jaamacad waxaa la leeyahay weli stiil waxbaa idinka maqan marka dadkaas idinka xisbi ahaan maxaad u qaban kartaan xisbigiina Arbais Party ahaan wala waa su'aal fiican horta waxa weeye jaamacadaha saa ula socota waxa lagu soo galaa craft aad og tahay waxa lagu soo galaa bunda lagu soo galaa jaamacadaha qaar waa very strong waxa weeye craft waa hoy waxayna ku xiran tahay haddana maadaad qaadanaysid waana international weeye marka laakiin qofku waxaa laga rabaa marka hore intaanan academic soo gelin waxaad leedahay mataqaanaa dream mafahant weliba dream maaha waa inaad leedahay n2 alternative inaad leedahay asaad ku soo gasho sababta waxaa laga yaabaa inaad one weydo oo two weydo oo aad soo gasho marka waxbarashadu waxa weeye waa qaybta ugu weyn oo xisbiga shaqaaluhu ay siinayaan priority weeye sanadaha soo socda sababta waxa weeye waxaan ognahay xataa dadka Norwegianka dhalinyarada badan ayaan soo gelin maadooyinkii ay rabeen jaamacada waa sax weeye erigaas marka inaan xoogga saaro dhalinyaradu waxa weeye haddii aysan soo gelin waxbarashada ay rabaan ay soo gelin waa aysan helin waxbarashada ay dirimeynayaan ay soo gelin khatar weeye waa muhiim inay helaan waxbarasho waana muhiim inay helaan da'da markuu yar tahay sababta waxa 2 sano 3 sano ay dhumiyaan it's too late wanay soo galaan xilliga ay mataqaanaa loogu talagalay inay jaamacad soo galaan arrintan kale waxaaba ku dheer covid-19 ana waxay dhahaan covid-19 arrintan virus hadda wadankan caalamka qabsaday waxa weeye curyaamin badan buu ku sameeyay shacabka oo dhan annaguna kuma sii jirnaba inba wuxuu yiri turanturo awal baan hor u socday Soomaalida awal mataqaanaa shaqadooda yar shaqooyinkooda hooseeya haysteen shaqooyinka mataqaanaa oo mataqaanaa aan ilig la mataqaanaa muxuu ruxmaya ayaa Soomaalidu haysataa hadda covid-19 wuu cunay dhaqamaha ka shaqeeya Soomaalidu waxay ka shaqeeyaan service waxa la dhaho basaska tagaasida ay ka shaqeeyaan waana meelaha waxa weeye lagu baabaay weeye oo shaqadu hoos u dhacday sababta waxa weeye hoteeladu waa la xiray tagaasida cid qaadanaysa malaha sababta waxa laga baqayaa ismitaa laga baqayaa in tagtiga mushaarka soo galay hoos buu dhacay marka waxa weeye arrintaas oo dhan waa isku wada xiran tahay shaqadii gurigii waxbarashadii ilmihii waa circle waay marka annagu xisbi ahaan waxbarashadu waxay noo tahay muhiim dhalinyaradeennu inay waxbarasho hesho haddii waayaan baalkooda koowaad ama labaad inay helaan tan saddexaad muhiim bay noo tahay waxbarashadu waxa weeye waa goolka ugu weyn oo qof dhalinyaraha u hiigsan kara wey waa gartay halkaas aan su'aalkaa weydiiyo oo aan isleeyahay muhiim waa isleeyahay idinka xisbiga Arbais Party-ga 4 sano koobanka doorashada soo galayseen dirqi ayaa idinkaga badiyay sida arkay oo ilaa saacadii u dambeeyay ayaan soo jeednay oo koodii lagu gaaray hadaa kula xisbiyada kalaba oo waliba hataa maxay ahayd madaxa ugu sareeya xisbiga Arbais Party-ga ilaa asoo gurigiisa u socotaa waraysiyo badan laga qaadahay waa la socday waxaan ku weydiinayaa ma isleedahay waxyaalihii sanadkaas aad kusoo gasheen in ay buuxiyeen xisbiyada kale sida hoyraha kadib buuxiyeen oo markaasi doorashadii ay idinkii wixii aad kusoo gelayseen idinka xadeen ma dhici kartaa والله ما قبوا صرت حوي هاد حوي هيرها 8 سنه ايو ودكان سو حكمي صح حكم كان waxa weeye hore baa saarku ugu dhuftay waa qor isku dhiib qofku waxa haduu 8 sano 10 sano 20 sano uu fadhiyo waxa weeye godska badanaya god bad ka saaraysa god kale galaya laakiin qorigu xukun markuu yahay qor isku dhiib 4 sano oo hadda la soo dhaafay waxa weeye hoyraha waxay sameeyeen gap enorm wadanka dhacay dadka faqiirinta waxa weeye kor bay u kaceen dadka taajiriinta waxa weeye 10 jeer bay la wajibaarmeen waxay favor u sameeyeen dadka milyaneerka ah fahanta waxa weeye Mareykan Norway waxay ku socotaa hadda hoyraha inta xukun qabsadeen haystay 8 sano dhameysay waa Donald Trump Tristan ma fahanta waxa weeye taajiriinta milyaneerka favor u sameeyaan sababta waxa weeye iskaadka ka yareeyeen dadka mataqaanaa meelaha lacagta lagu maalgelinayo oo fellowshipka ma aysan sameeynin dadka mataqaanaa milyaneerka mataqaanaa in iskaati letter soo sameeyeen ama cashuurta u dhaafeen marka waxa weeye hadda waxa weeye wax kasta oo fellas sida isbitaalada kale waxbarashada kale gamalyamka kale baanaha kale sheeko waxay wadaan oo mataqaanaa oo dadban
oo qaab daran laga yaaba xataa qofka Soomaaliga macquul insaan inuu fahmo oo la dhama taqaanaa waxay dhahaan baalga freehead waa dhagta uu fiican yahay qalbiga uu fiican yahay maskaxda uu fiican yahay laakiin eriga baalga freehead maxaa waay doorashada rabitaanka ka yimaada waxay leeyihiin istaalkii private baa laga dhigayaa waa baalga freehead qofka martaqaana marka aan lacag haysan istaalka haddii private laga dhigo waa sida Maraykanka kale daawadii ma gadan kartid istaalka ilmo ma seexan karaan waxa way qofkii mataqaana hantile ayaa gali kara gamaliamka sidoo kale waxay leeyihiin waa baalga freehead gamaliamka waxa way qof kasto da gaara oo mataqaana aan mataqaana isbixin karin free waa u yahay mataqaana xisbiyadana way u yahay laakiin waxay leeyihiin albaabka la furo dadka baacushtarka ha lahaadaan qofkii mataqaana iska bixin kara service iska bixiyo taasna qof walba kama bixi karo marka waxa weeye qaabkaas aanu ka soo horjeednaa waxaan rabnaa service qof walba uu siman yahay likfo Allah tilbidku mataqaana loo siman yahay iskuulka loo siman yahay just imagine iskuulka ilmaha u dirto hadduu private noqdo ka war just imagine marka waxa weeye waxyaabahaas dhan ma rabno waxaan rabnaa iskuulkii in dowladdu leedahay qof walba albaab ku furan yahay waxaan rabnaa jaacadii qof walba albaab ku furan yahay waxaan rabnaa gamaliamkii qof walba albaab ku furan yahay baanihii qof walba albaab ku furan yahay laakiin hore waxay rabaan qofka jeebkiisu buuxo inuu services galan karo taasna ma rabno marka waxa weeye hadda say u muuqato xisbigana waxa weeye iyo xisbiga kale alliance aan la leenahay 80-90 waxay muuqataa in mataqaanaa uu dhacayo wareegga awooddu ay u wareegayso dhinaca regrona ay dhahaan ay wareegayso ama Arbes Party oo SB oo Socialist National Party inay qabanayaan marka insha Allah taala waxaan mar labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo shanaad mataqaana weydiisanayaa in xisbi Arbes Party waa ururka shaqaalaha weeye waxa weeye mid kale waxa weeye wadankan hadda ku nooshaa Norway xisbiga shaqaalaha weeye waxay u soo qabteen waxyaabaha hadda ku naalaanaysan haysataan oo dhan waa xisbiga soo dhisay weeye Arbes Party waxa weeye wuxuu ka soo qayb qaatay waxyaabaha waaweyn welfare-ka ama aad maanta haysataan naaf cayrta waxbarashada kibina rateterka likastiringa waxaan dadka dhagaxa u dhigay oo gogosha dhigay oo dadka mataqaana shaalka garabka u saaray waa xurug xisbiga shaqaalaha weeye nimankan kale waxa weeye waa dhurwaas oo fariistay meesha weeye oo mataqaana maalinkiina kuu sheegaya kula mataqaana wax fiican baa sameynaa kursiga marka kusoo fariistaan waxa weeye waxba qabanayaan gaar ahaan xisbiyada midigta hoos oo fog aad iyo aad baan kaga digayaa in codkiga siisaan ama santa waa gartay Soomaalidu waxay tiraahdaa tiisa daryeera tu kala ku dara hadda dib ugu laabano dadkeena Soomaaliyeed ee dalka Norway ku dhaqan jaaliyado kala duwan ayaa jira calamo kala duwan wata marka sidee lagu midoobi karaa oo lagu yeelan karaa hal gudoomiye ama hal macnaheed ujeedo si markaasi loo helo dad isku wada xiran oo Norway jooga wax diidi kara waxna yeeli kara mid kale haddaan ku raaciyo mid kale sidee lagu heli karaa adiga ay kula tahay jaaliyad lagu wada midaysan yahay oo dadka Soomaaliyeed isku wada imaan karaan oo markaasi dadka xataa markaasi xilka haya xataa 2 sano 3 sano markii haataba doorasho dhacdo oo markaasi kii lis oranaya wax buu qaban karaa lagu dooran karo maadaama idinkii meeshii aragteen aad gaarteen bulshadiina ka tagteen oo aad dib u soo eegayseen bal markaan bulshada dib u soo eego qaabkii lagu midoobi lahaa maadaama aad wax barateen xisbiyada wax soo barateen qaabkii lagu midoobi lahaa oo challenge lagu sameyn lahaa oo doodo kulkul lagu sameyn lahaa ayadoo markaasi aan la qabyaaladeenin sidee lagu heli karaa kula tahay horta aad iyo aad baa kaga macalinaya waa su'aal culus weeye oo waxaan malinayaa qof kastoo indhegeysanaya oo ku raaxaysanayo oo sugaya jawaab waafi inuu ka helo wow shiinaska anuu shiinaha kusoo bartay shiinaska waxa weeye dad oo waxa weeye waa sanfun ama dad waxa weeye gaamil oo duqa weeye macnaa dhinaca hadalka iyo maamaara iyo murtida iyo filosofiyadda shiinaska waxay dhahaan daasaw fangza sajinka gurigaaga marka hore nadiifi marti intaadan gurigaaga aadan keenin macnaa waxa weeye Soomaalida arrinta ka hadlayso waa arrin culus weeye waana arrin xalaal ah oo u baahan in si fiican looga baaraandego looga wada hadlo nolosha waxa ugu fiican intaad reer rardho oo meel fiican oo roob u radho dejiso oo mataqaana ayagii oo mataqaana hagaagsan oo faraxsan oo barwaaqaysan in qof kale kaasii qabto boos kasii qaado meel kasii fiican sii geeyo noloshu waa intaade soo maaha laakiin waxaa la rabaa Soomaalidu inay fahmaan maamulku ma aha qof inuu fadhiyo ma aha maamulku waa qor isku dhiib laakiin waxaa laga rabaa intaad fadhido inaad tiraahdo waari maysi war ka haro wax fiican shacabku qabato fahant Soomaalida maanta intaan ka ogahay Norway
hal urur oo jira oo ummad dooratay oo guddoomiye ah ama istiira ma jiro ma fahanta qaabka mataqaana madaxweyne maray dhaha Soomaaliya waa in wax ka baranno Yurub baan joognaa qaab iyo system baa jira waxaa la rabaa mataqaana in aan ku fakaro Yurub waxba kaba qabsan karo haddaan isku xirayn 50,000 40,000 oo isku diina isku dhaqana isku caadaad generationanta ku dhalanay dad waxaa jooga early 80ga xataa soo galay Norway ma fahanta marka dadkaas waxaana la ka rabaa inaan ismideyno isku transulo walaalaysano hadda wuxuu gaar ahaan in la kaftamo Oslo ninba wuxuu yiri mataqaana meed maxaa u dambeeyay kala siiso Oslo waxaad isku haysataan masaajidka Ilaahay baa ka fakana oo mataqaana waxa la mataqaana darbiyada masaajidka caalan kala rano lagu yeelo si mataqaana loo garto qolo walba dhinaca ka soo gasho oo dhinaca loo duleeliyo qaabkaas cid ku dhaqanta ma leh waxa raba Soomaalidu inay ka xishoto midda kale waxa weeye hadda waxaan ku jiraa social media time baan ku jiraa waxa weeye dadka noog Norwegianka noog siyaasiyiinta noog waxyaabaha isku haysano waa la og yahay media soo galan waa ceeb ku tahay Oslo waxa ku degantay 25 kun 30 kun waxa samaysan kartaan 10 qof oo 40 sano 3 sano mar la bedelo just that waxa samaysan kartaan 10 qof oo kuwa karaamada badan oo aan ogahay dad aqoon leh oo mataqaana taf inay raas leeyihiin inaad u dhiib credit mataqaana xilli go'an oo mataqaana wad in hogaamiye oo codkiina iyo sharaftiina karaamadiina midaya maxay ku dhicdaa annaga ku soo haray annagu waxa weeye haddaan nahay anigu reerkiisan baan joogaa iyo goboladan southka waa in ka fiican hal waan ogtaa waan naga soo guuday waxa weeye annagu waxaan samaysanay ururo waxaan samaysanay dhalinyarada intifaacno waxaan samaysanay meelan dhanaan isku keenno waxaan samaysanay mataqaana nolol iyo dhaqaale iyo hanti mataqaana ay leeyihiin anagu ma lihin ayaga iskale shacabka la rabaa in lagu celiyo codka ayaga iskale aydiyada ayaga iskale rabitaanka ayaga iskale laakiin qofta meel iska fariista mataqaana madaxweyne maray dhaha ma jirto deenaadeer waxaa la rabaa in xataa media ka shaqeeyo journalistayaashiina inaad dadka wacyi gelisaan oo ay qof kasta oo Soomaaliya ka qayb qaato jiritaanka iyo karaamada iyo mataqaana walaalnimada Soomaaliyeed kama santo aad baad u mahadsan tahay maasha Allah waxaan rajaynayaa waxba ma harin wixii la oran lahaa dhan waa tiray Ilaahay ka ajar siiyo cilmigeeda iyo aqoonteedana waad leedahay Ilaahay ku barakeeyo dalmar markaan ka soo laamana siyaasadii howlahan oo dhan dadka Soomaalida caqabadahaas way badan yihiin macnaha caqabadahooda ma aha kulla soo koobi kara shaqadii laga hadlay wixii dhan laga hadlay laakiin taas mid ka darna jirto oo hooyo kasto Soomaali ah markay maqasho ay meel xanuunayso taasoo ah hay'adda xanaanada ama la yiraahdo Banavanka oo inta badan qaadato caruur aad u fara badan ee sharcigeedana uu yahay inay caruurta ilaaliso xuquuqda caruurta waxa lagu eedeeyaa xildhibaanada la soo doortay ama golaha deegaanka dadka Soomaalida ugu jiro gobol kasta ha joogaan marka ay noqoto xaaladda waalidka in caruur laga qaato si kastaba ha ku dhacdo ha loo qaatay in aadan wax badan u qabanin alidan ku eedeeyaa oo aanan la dabagelin kiis laga qorin la yiraahdo dadmanka waxay taabteen lama taabtay halka lagu daayo oo faraha looga qaado sida aan ogahay dabcan adigu gobolka aad maxay ahayd ama ha noqoto labada agdar ha noqoto howlo badan aad ka qabatay inta qaar badan aniga aan ogaa oo caruur aad soo dhicisay ee markaasi la qaatay kuma oranayo maad qabanin waxyaalaha marqaato ah ayaa jira oo aan u joogay soo dhicis laakiin guud ahaan dadka la soo doorta ama xildhibaanada ah ama golaha soo gala marka ay noqoto howlahaasi maxaad u qabanaysaan waalidiinta dhibaataysan kuwa hore caruurta looga qaatay iyo kuwa hadda wadnaha farta ku haya ee ka baqay in laga qaato caruurtooda iyo kuwa hadda miiska u saaran yahay kiisaskooda maxaa idinkaga aadanood u qabanaysaan ama aad qaban kartaan horta waxa weeye su'aasha weydiinaysa waxa weeye su'aalan aad ugu dhuundulala weeye waan ogahay xanuunka ay leedahay walaalo badan iyo hooyooyin badan oo ilmada laga qaatay soo dhex galay maaha inaan luqad ku caawiyey laakiin waan u dagaalamay fight for it maanta hooyooyin magaaladan degan qaar weliba Oslo idin soo guuray I hope inay fiirsanayaan ayaa maanta ilmahooda dhabta ku fadhiyaan waan u soo ceshay alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay ugu guuleeyey ma aha inay qaadatay bil wallahi qaar baa waxaan ku soo celiyay 48 saac ilaahay baa iga sarreeya 48 house aan guriga ku soo ceshay fahant oo hal maaha laba maaha saddex maaha marka waxa weeye waxaana keenay mid hadda in kala hadlaynaa haddaad karaamo ku dhex leedahay shacabka la degan tahay you will hear it
codkaa waa la maqlayaa maanta laakiin haddii aadan karaamad ku dhex lahayn waa lagu joogsanaya runtaa idiin sheegaya idinku istaagaya ilmaha qaar waxay ugu reebeen dhaawac oo wallaahi dhaawacay ugu reebeen ilmaha soomaalida na waxa weeye waxay leeyihiin qaab lagu soo barbaariyey ay leeyihiin oo dhaqankii diintii ah caadooyinkii ah soomaalinimadii ah urkii ah cuntadii ah hooyadii ah markay waayaan oo laga qaado tusaale idin soo qaadaya waxaa dhacday in la iigu yeero 2 wiil oo midna uu jiro 8 sano jir yahay midna uu yahay 10 jir oo la qaatay oo family Norwegian loo geeyey ayaa hooyadii dhashay waxay ilaa dalmar ay turjumo ay yimaad way iga aqbalan baano ilmihii yaa la wareysanay waad ogtiin ilmaha waxa way waqti la siiyaa inay ku hadlaan codkooda dhiibtaan mataqana si loo dhageysto noloshooda waxay mataqana hamigoodu yahay waxay dareemayaan wax ka maqan manaha su'aal waxay kugu soo wadaa xanuunka ilmaha la qaato meeshu gaarsiya idin soo wadaa ilmihii intay hadleen af Soomaaligooduna waa biyo weeye labada wiilba waxay dhahaan waxyaabaha aan ka cabayn ugu weyn waxa weeye waxaan la seexanaa oo qolka nala seexday واسعلي واي او والله waxaan isku celin waay ilmadayda inaan mataqaana si professional oo u control oo celiyo way suurtagal weeyday man waxaan dareemayaa hooyo Soomaaliyeed marka la yiraahdo ilmahaagu ay way la seexdaan macnaha meesha ka taabanaysa touchka ayaan dareemayaa marka waa xanuunka inaad fahantaan ilmihiinu inay daaraan 8 jir yiri war aniga wax kasta u sameeyo hal ay qaato guri kale aan dago Norwegian aan la deganaado laakiin qolka ayga hal laga saaro 8 jir markuu gartay halkaas la dareemaysa marka ilmehen waxa weeye kaliya maaha in aad ilmihiin u dadaashaan sababta waxa weeye waaridkii mas'uuliyad baa idin saaran mid waxa idin saaran muslimnimo mid hooyo mid aabe mid dhaqan mid diimeed mid ilmaha waxa weeye waad ka qoobis waa ka dhimanaysaa bari fahmt laakiin maxay kugu soo xasuusanayaan bari ilmahaagu noloshu waa staafet waa qor isku dhiib hooyo nooceed noqonaysaa tomorrow aabe nooceed noqonaysaa tomorrow fahmt marta taa weeye in had magaalada waxa ka jiray wiil aabi magaalada ku cirsan jiray aan ka raray inuu dil rabo sababta waxa weeye markii uu yimid xilligii barsamaadku soo galay dabcan aabi xilligii intaan chat kula gelin buu chat cunu ahaa lacagtii iyo koritaankii asiga lagu korinaa ilmaha lacagtii aabe kirisna uu ahaa wuxuu la galay mataqaanaa luqluq chat ku cun jiray asiga 30 jir hadda aabi raasan inuu dilo just imagine sababta wuxuu ku beeray wuxuu baray gaajo wuxuu baray inuu la tartabin mataqaana asaagiisa wuxuu baray mataqaana inuu bushta u dabaaldegin wuxuu bahdil ma garanaysaan wuu bahdil asagiyo 25 jira jooga iyo odayo mataqaana 60 jira wallahi baan kugu dhaartay uu ka caray magacna waa bedelay caawa magaal wadanka meel ku degan laba yaqaano bahdilkaas adinka isku soo jiiday kuwana fiirsanaya waa isku keenaysan sababta waxa hadina ilmihiini aan jacayl tusin oo dhabtiina isku fariisan oo ina ka warqabin oo waxbarashada la socon oo iskuul mootiina tagin oo banhaankiina tagin oo canto mataqaan digsi laga soo qaaday afka u galisaan inta kalena ina ka warqabin la fariisanayaan marka annagu xisbi ahaan waxaan u dagaalamayna oo ballana ilmaheenu inay soo noqon kuwa ay la seexdo ilmaheenu inay noqdaan kuwa Soomaaliyeed oo dhaqankooda diintooda caadadooda sharaftooda ay ku faanaan taas weey anaga goolkan xisbi ahaan taas weey aniga qof ahaan personal ahaan taan mataqaana aan ku aas-aaska saddex way Soomaalinimadu ma aha wax maanta Soomaalidu waa tan bari waa tan 100 sano soo socota waa tan 200 soo socota qof walba waxa laga rabaa taasaw fansa sajinka gurigaaga nadiifi marti intaan guriga keenay sababta way kastumooyinkaaga iyo shawaadiyaha iyo albaabka yaala dabarti ma iman karto gurigaaga soo maaha qofkas marka waxa laga rabaa Soomaaliya inuu gurigiisa ilmihiisa gacanta ku dhigo oo mataqaana ilmaheena waxa weeye sheens waxa kala dhahan ay raaciye hadda rabto inaad taag oo 100 sano waxaad faltaa duur falo hadda rabto inaad milyan sano aan taajir noqotana waxaad faltaa beer falo hadda rabto waliga inaad taajir noqotana dad wax tar waxa weeye nolosha waxa la maalgeliyo waxa ugu fiican maaha guri maaha lacag meel la dhigto maaha shaqo maaha hanti kale waa dad weeye waa human investment qofka maalgeliya dad ama kula dhasho ama diimad Soomaaliya kula ahaado ama luqadda kula ahaado ama dariiqa hamar ahaado gacanta u fiday ka kaalita
that's investment marka qof kasta Soomaali waxaan leeyahay gacanta isku fidiya gacanta isqabta isku day inaad ismaal gelisaan ilmihiina maal gelisaan gurigiina maal gelisaan walaalihiina maal gelisaan Soomaalina maal gelisaan ma santiin dalmar marka laga soo taga waalidiintii oo hadda saad sheegtayba in badan oo waalidiinta Soomaalida ay gabeen doorkii ay ku lahaayeen aabanimada iyo hooyanimada taasna ay keeni karto in carruurtii marka ay gacanta u galaan maxay ahayd cid markaasi aan ka naxaynin marka laga soo taga waalidiinta iyo xuquuqda lagu lahaa maalin kasta waa la sheegaa idinka ka xisbi ahaan maxaa qaban kartaa gaar ahaan waliba idinka adiga oo markaasi doorashada u taagan xisbiga shaqaalaha annaga saan horeba u sheegay walaalayaal anaga waxa weeye xisbi ahaan anagu waxaan ka soo horjeednaa horta ilmaha in baanbaanuhu ay noqdaan dab ifaayo oo lagu xuyeeyo shacabka waa ka soo horjeednaa waxaan rabnaa awoodda in lagu celiyo waalidiinta in la dhagaysto la siiyo room ama la siiyo chance mataqaan ay ku sheegaan ilmaha dhibka family ahaan haysta ilmihii waalidkii haddii macquulta la isku celiyo waxyaabo badan oo isfaan la'aan ah ama mataqaan misfashtools badan baa jira isfaan la'aan ah oo carruurta looga qaato hooyooyinka iyo waalidkaa jira waan ognahay macnaha tii dhaqanka ahayd mataqaanaa hataa dharbaxa oo barida kaga dhuftay ama dhabar kaga dhuftay oo mataqaanaa khalad loo fasiray qaar ahaan aragnaa ilmaha looga qaatay laakiin xisbi ahaan waxaan doonaynaa in waalidku ay noqdaan centerka la ilmaha go'aankooda oo aysan noqon baanabaan waa aysan noqon dad wax lagu xuxiyo sababtoo waxa baanabaana marka la dhaho kumanaan kun oo Soomaaliya ka guuray Norway oo u qaxay Ingiriiska u qaxay Holland hadda waxaan tagay Manchester United baan tagay Manchester City baan tagay United ma aqaana City baan tagay xaafadan waxaan tagay Nuujaan lagaga hadlo oo dad soo qaxay Soomaaliya waxaana ka soo careen baanabaana marka waxa weeye Soomaalidu waxa weeye waa reeguura weey saasa ma soconayso ilmihii waxa laga yaabaa 3 luqad 4 luqad inay ku hadlaan oo 3 wadan 4 wadan laga soo kala raray taas waxa weeye marka ilmuhu waxay u baahan yihiin deegaan degan waxay u baahan yihiin asxaab degan saaxiib degan ciyaar degan naaburiyo mataqaana jiir degan ayay u baahan yihiin laakiin ilmo sidii boorsada kale iska wato oo qoraxda meesha ka dhacda mataqaana wadda cusub iyo diin cusub iyo dhaqan cusub iyo wadda cusub la degayo ma soconayso marka anaga xisbi ahaan waxaan doonaynaa ilmaha inay noqdaan tiirka shacabka inay noqdaan waxbarashadii koritaankoodii xuquuqdoodii baanabaanaha waxaan rabnaa in mataqaana lala yeesho dialogue oo ilmaha mataqaana intay guriga marka la geeyo mataqaana baanahaanka ama la geeyo iskuulka iska qaadan ilmo badan oo Soomaaliyan ku soo noqon guriyaha oo Soomaali markii canjeerada ka cunaan guriga dib u soo noqon oo ognahay oo laga qaday mataqaana hataa aan la wargelin waalidkoodii waxyaabahaas oo ka soo horjeednaa ilmaha waxaan rabnaa iyo waalidku inay noqdaan ayagu inay leeyihiin cod kale yihiin la dhagaysto ay noqoto mataqaana meel laga amba qaado oo shacabkeenu ay noqdaan ayagu mataqaana cod ka yeeshaan laakiin ma doonayno ilmo mataqaana sidii mataqaana dugaag iyo kale laga qaato iskuulada iyo banaanka ama santa xagga doorashada haddii xisbiga sanadkan ku guulaysan weysaan maxaa idin qorshaysan adigase maxaa ku qorshaysan doorashada haddii xisbigiina ay soo bixi waayaan maadaama sanadka dambe lagu balansan yahay golaha deegaanka doorashadiisa horta waxa weeye إن شاء الله حكم قبسنا إن شاء الله وحن قبسنا سد ديمقراطية وحن قبسنا سير ربيتانا وحن قبسنا إن كالنت نذا يو برانك يو بروجكت إن شعب هان أرنا وده كانوا كوجا منه وأنا آمن سنة يرنتي إن سياد قط إن شاء الله إن استبدل دي عساس دوين ودعيه إن وحكوسه هاري إن هدي أكو جلسين وينه ارتبط أنا almost predictable وحاو أيضا جلسين لكن وحويه ربيتانك يسبدل كشعب كأو قبنا يسكوم حر جول يقول دركم حر مركز أنا وحوم تاجنا هاي سوالنا بذا مركز وحوم تاجنا هاي عوامات ضد كيجا أما أن كسب حبيان كسب كم حر تاسو تبى حويه لغة وحاول لغة تلاقي ده لغة تلاقي ده كسعته لغة هي وحويه سماع إسكاله وحويه هدي أن حسب جام تقنا أوسن كرؤوس عنا قالوا صعدا مهرب صعدا كم حر مركز واحد سكود ده إلى ساعد وما ضيدا مركز waxaan isku dayaa inaan u dagaalamo carruurta xaquuqdooda markaas waxaan isku dayaa mataqaana inaan dhaqankeena iyo diinteena caadadeena u dagaalamo markaas waxaan isku dayaa in mataqaana Soomaalida ka dhex muuqato shacabka Norway goolku kaas weeye guul iyo guul darro dad fara badan ayaa kala socda qaybta maqalka idaacadda FM-ta Voice of Oslo 99.3 dad fara badan kala socdo sidoo kalena Voice of Oslo website-kiisa hadda aan kala hadlayno qaybta kala raadiyaha Facebook dad baa kala socdo oo Soomaali ah maxaad kula talinay dadka Soomaalida faraha badan ku dhigsanaya ee dalka Norway degan marka loo eego dhinaca doorashada iyo waliba talooyin aad soo jeedinaysid
aan ku hormaro walaalaad ma santa aan ku hormaro dhinaca doorashada waxaan ka codsanayaa inaad ma horna uu arkan u dhuftay inaad codkiina isticmaashaan waa muhiim 18 jir haddaad tahay oo baasaboorka Norwegian-ka haysto dhalashada Norwegian-ka haysto isticmaal codkaaga oo u isticmaal inaad wax ku bedel ku samayso xisbiganaga shaqaalaha Arbis Party haddaad siisana ka fiican is will be much better haddaad taxawiye guarantee baan ku siiyeynaa in xuquuqda u dagaalamayso oo mataqaana aad noqono xisbi aad ku xisaabtanto oo accountability leh taas waa mid talabaad maxaan u sheegayaa shacabkaas walaalahay oo faraha badan oo dhinaca Facebook iyo dhinaca idaacadda naga dhageysanaya waxaan ka codsanayaa oo marraan ka codsanayaa koowaad labaad saddexaad ka codsanayaa in aad ogaataan isku duubnaanshaha Soomaalidu middi af noocay samayn kartaa inaad taas weydiisaan macnaheedu waxa weeye middi aan la soofayn oo soofayn u baahnayn aad samayn kartaa haddii aad samaysaan taas macnaheedu waxa qofka Soomaaligu maaha you don't have to do much job ila shay ismaa shaqo saa u badan war qofka dariiqa kaaga soo horbaxaya Soomaaliga ina xataa marxabayso ina xataa salaanto kan dukaanka ugu soo gasho salaanto kan journalista salaanto kan baska ku soo gasho salaanto aad ilkaaga u cadayso aad muujiso inaad ku faraxsan tahay qofka Soomaaliga taas waa cunto inaad iska warqabtaan iswaraalaysataan ismarxabaysaan isku duubantiin mar waxa weeye buur baad qaadi kartaan oo hortaagan wallahi mid kale waxa weeye tusaale ila u noqotaan weeye dadka halkan joogay oo Yurub joogay Norway jooga wadankan wuxuu ka fiirsanaya dadka halkan jooga waa dad hadda Norway tusaale ahaan waxa weeye dadka la deganahay 300 oo sano ya ilaa galaaska sagaalaad wuxuu ahaa khasab kan imagine dad badan dhageysanaya laga yaabaa in sax toogeen 300 oo sano ya qof kasto Norwegian wuxuu qasab ku ahaa inuu tago ilaa galaaska saddexaad ama dhinac kiniisada ka soo maro ama iskuul toos ahaado whatever 9 sano 300 sano maalgelin markuu waxay sameeyeen shacabkooda dhinaca waxbarashada dhinaca madaxa dhinaca aqoonta dhinaca qoraalka dhinaca darsla dhaqanka communicationka insaan human investment ismaayo waa taa ka leeyahay laakiin haddii la maalgelin oo qabyaalad iyo Premier League calama kala gasano googorada mutaqaan duurka qaadan jiray oo aad wadataan anasade waxa la in ka rabaa Premier League caalam kama jiro Norway tuula ka soo tagtaan iyo buur ka soo tagtaan kumuna ku dhagan aad mutaqaan lagu saxan jir lagu dhajiyay caalamkaas Norway ka dhaxeeya luqadaas ka dhaxaysa way ku faanaan way ku dhintaan waxa weeye qof ogaadana nolosha caalamka arkaysan isbedelka weyn oo shacbi higsado ama mataqaana nation higsado kama yimaado 100,000 kama yimaado 200,000 kama yimaado 1 million person wuxuu yimaado hal qof buu ka yimaado just imagine that every big change in the world wuxuu yimaado hal qof baa kaca hal qof one person yaa kaca kaasa lagu xasuustaa oo taala ku leh oo buwa ku leh oo library marka waxa sanaya qof walba oo Soomaaliya ha noqdo ambassador Soomaaliyeed ha noqdo fahant ilmaheena dhaqankeena dib u hagaagi way isbaasho isku xiran tahay haddii qof walba oo ambassador u noqdo here we go everything will be fine laakiin qofka Soomaaliga oo dariiqa maraya hadaa dhagax ku tuurto kii naaburka dariska kula dhagax ku tuurto oo qabyaalayso oo masaajidka aad tiraahdo taqaanad meesha darashada hala dheereeyo albaab laga soo galo oo qabiil walba ka soo galo ha noqdo oo masaajidka darashada ma laha albaabadu noqonaya waa ceeb inaad eegto waa ceeb marka waxa weeye waxaan kula dardaarmiyaa dadka nageysanaya walaahay aan leeyahay Soomaalinimadu ha noqoto centerka naga dhaxeeya oo Soomaalida ha noqoto oo caadadeennii iyo ilmaheennii iyo diinteennii iyo dhaqankeennii walaalayn kara laakiin calamo kala gedisan qabiilo kala gedisan nama midayn karaan waxaana midayn karaa Soomaalinimo walaalnimo diinnimo mataqaana luqad isku mid ah waxa weeye wax walba waxay noqonayaan fine laakiin taas waxay u baahan tahay karti iyo mataqaana iyo isku xiraan وسياس وهي ودوتها كودير ربي إذا عدنا voice of Oslo قيبتي إذا مقالك FM تا سقال اللي بيصدح لبيه توصلوا أيا صباح حتى كان لسا وريال كلا دون إذا عد صح حاضري رنتي برامج كلا دون إذا عد أسميه هذا هلا برامج هذا هلا أرمها برشة وكهذا اللي كصومالي واحد قبصدي هذه مقاهيين هذه اللي مرتي مجرعة iyo haday wax qabsadeen iyo waliba shirar kala duwan oo marar badan danta Soomaaliya looga hadlay idaacadda Voice of Oslo soo tibisay niimada ay leedahay idaacadda Voice of Oslo ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed ka Norway degan maadaama 12 sano ay buuxisay
adig ka aragti ahaan sidee aragtaa in idaacad Soomaali ku hadlayso dalka Norway ay ka soo baxdo FM ah dad badan ay ku xiran yihiin oo dad aad u fara badan ay dhegeysanayaan oo ay hadda ku daawanayaanba sidee aragtaa adiga idaacaddaasi Voice of Oslo wala aad baad walaal u mahadsantahay horta waxa weeye adinka journalist yahan wariyaal ahaan horta aad baan kaga mahadcelinaya shaqada qabanaysa waxa weeye waa shaqo society-ka u qabanaysaan guud anaga Soomaali ahaan iyo gaar ahaan xataa dadkan la degannahay sababta waxa weeye waxaad samaynaysan wacyigelin baad samaynaysan wacyigelinta waxa weeye noloshu waxay dhahaan win waay labada dhinac waa aadaysaa macnaha shacabkeena dan baa ugu jirta shacabka la degan yahay dan baa ugu jirta sababta wacyigelintu waxa weeye waa two ways weeye marka in idaacad luqadeennii ku hadlaysa oo mataqaanaa misunderstanding uusan jirin de ma fahmin si kale u qaatay saas uma maleynaynin ma soconayso waa luqadeenna hooyo ku baxaysa oo leh barnaamij wacyigelin caafimaadkii leh waxbarashadii leh noloshii leh shaqadii leh diintii leh karaamadii cilmibaarihii leh everything's there waan ogahay waxyaabaad ka shaqaysa waan ogahay dad badan oo aqoon sare leh Soomaaliyeed inay soo fiirsadaan meeshaad ka hadashaan covid-ka ka hadashaan waxbarashadaad ka hadashaan siyaasaddaad ka hadashaan many aspects mataqaana oo dialogue aad la samaysaan taas waxa weeye waa guul weyn oo soo hoyatay weeye Soomaalida reer Norway iyo Soomaali Oslo iyo gaar ahaan mataqaana dadka ku xiran oo dhan sababta waxa weeye ayaga xataa way soo baraarujin karaan waxaad heli kartaan feedback ay heli kartaan maxay bulshada maxaa xagee kabahu ka riixayaan waxay noosh ku dhahan ur isku trickiyo fahad macnaha waxa weeye taas baad heli kartaan xagee kabahu mataqaana musbaaru kaga taagan tahay ayaad heli kartaan taasaad ka dhigi kartaa mataqaana topic mataqaana aad ku soo qaatan halkaan oo ama mataqaana shacabka ku xiriirisaan marka shaqada haysaan shaqo la soo koobi kara maaha waa shaqo weyn weeye culus oo mataqaana mas'uuliyad weeye hadana barshaal ah adii kale waxa weeye in ogahay dad aqoon lahaatiin wariyaasha badan waxa weeye Premier League ay raaceen wadankan markuu burburay waxa laga yaabaa dad walba caalam walba iska leeyahay mataqaana wariye gooni u ah laakiin dad professional ah oo critical hadda qaabka wuxuu i weydiinaysan very critical waay sabarti macnaha waxa kind of waxa muujinaysaa inaad journalistyaal aad tihiin mataqaana yaqaan shaqadooda marka shaqada qabanaysan waa so enormous waay waa weyn tahay sababta waxa weeye dadkeena wadana waa sidii xal hore u sheegtay walaasha xal hore u sheegtay waa oral people maxaa la yiri maxaa laga sheegay dadka hadda in ku xiran waxa laga yaabaa in 90% library aadaan is book aqrin ama chance isu haysan laakiin 5 saacadood xiriir ku dhageysan karaan oo any kind of topic aad ka hadlayso marka waxa weeye shaqada qabanaysan waxa weeye ilaahay khayr iyo xasanaad ka siiyo waa shaqo culus weeye waxaan qiyaasayaa insha Allah dad badan iyo qof kasto reer Oslo oo macquul u tahay mataqaana inuu ku xiraado kanaalka inuu ku xiraado oo mataqaana aad noqdo aad balaarisaan waa ogay Facebook ku xirantiin xataa waxaad ku xirantiin Twitter ku xirantiin hadda waxa weeye xilliga hadda aan nool lahay waxa la dhahaa il tempo di information talaan lagu dhahaa xilligii information ka dhahaa detail information cid mataqaana hadda luqadda marayso mataqaana qoraal marayso ma jirto af qoraal twist Facebook in any kind of sort of ismaasho macnaha waxa weeye xilli waxaan ku jiraa social media uu yahay meesha wax laga bedelo the real change is here qolka hadda fadhidaan weeye meesha muftaaxu yaallo caalamku waa halka ma fahayd waxa weeye aqoontaad gudbinaysaan iyo su'aalaad gudbinaysaan iyo critica samaynaysaan iyo wacyigelinta samaynaysaan waa furaha weyn weeye oo aqoonta weeye runtii marka aad iyo aad baan kaga magacilinayaa shaqada qabanaysaan aad iyo aad baan waxaan idiin gelinayaa waxaan rajaynayaa insha Allah kanaalo badan oo weyn oo idaacado live oo mataqaana oo studio in mataqaana Soomaali ku yeelato Oslo sababta waxa tiradina waa haysanaa dhaqaale waa haysanaa dadka aqoonta u lahayo mataqaana journalistiyaasha waa haysanaa we need it marka the real change we are there blow baan nahay laakiin waxa weeye we will hit the road laamigan waa saarna insha Allah aad baad u mahadsan tahay dalmar oo ku faraxsanahay maanta inaad barnaamijka nagala qayb qaadato oo dad badan oo Soomaali ay ku dhageystaan cilmigaada iyo aqoontaada iyo talooyinkaadana ay qaataan aad baan ugu faraxsanahay anaga haddii aan nahay Voice of Oslo waxaan mar walba u taaganahay bulshada Soomaaliyeed su'aalaha aan ku weydiinayno ama aan weydiinayno dadka markaasi aqoon-yahanada kala duwan aan ku martiqaadno waa su'aalaha dadka shacabka afkooda ayaan soo qaadanaa su'aalaha dadka ayna soo weydiiyaan ayaan markaasi si toos anaga idin weydiinaa maadaama fursad aan anaga idin helnay shacabka aysan mar walba idin helaynin waan ku faraxsanahay anagoo isku duubana dabcan dhamaanteen waxaan idin leenahay hay dalma hal inaan live hay waxaan runtii inaad mataqaana arrintaas mataqaana aad idin noqoto
arrin aad sii ambaqaadaan waxay ugu soo xirmay dhalinyaro oo mataqaanaa Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ka sameynaya umbrella dadka indhaha dhalinyarada indhaha Soomaaliya oo any region of Soomaaliya waa nidaam cusub ay rabaan waxbarashada ku qasab tahay Soomaaliya waxa la dhahaa qofka indhaha wax ma baran karo ama qofka handicapka wax ma samayn karo marka dadkana dhageysanaya xarwana waxaan malinayaa way la gashay teams baan la galay oo kulan ah usbuucda soo dhaafay anaa la igu soo xiray si aan u dhageysto baahidooda marka dadkan ugu xiran waxaan rajaynayaa in haddii aan soo qaadno in la caawiyo dadka noocaas oo kale ah sababtoo hadda waxaan isku dayayaa anoo shacabka la marin aan dowladda dhexda ka caawiyo oo waxay uga baahan yihiin u sameeyaan isku dayayaa oo wasaaradaha qusayso oo kale iyo mataqaanaa waddanka waxaa ka jira mataqaanaa handicap forbun baa ka jira inaan u marro oo u caawino shacabkeena mataqaanaa dhinacaas u galo laakiin waa hadda taan ka hadlaynay ambassador waxayna weydiiyeen keliya dhaqaale keliya maaha mashiin loo dira maaha inaan u noqono ambassador jooga Norway oo xuquuqdooda iyo insaanimadooda waa indhala yihiin ismaarkii war qof kasta haddii uu qof kala saacido mid indhala mid kabka go'an tahay kabta u kabto kan walaalkaayo ciyaar suuqa mataqaanaa dhalinyarada ka baqayso suuqa galo aad ka soo celiso mataqaanaa kan nacasta gado 10 jirka aad ka qaado tiraado saan ma ahane dariiqa laga sugaya qof walba hadduu qof saacida in adeer noloshu waa intaade marka insha Allah aad iyo aad baan idin salaamay aad iyo aad baan ka mahadcelinaya martiqaadeen waxaan rajaynayaa insha Allah kulamo badan oo saan kala ah inaan yeelno insha Allah guul aan ku rajaynaa doorashada 13 September bilaabanaysa insha Allah waxaan idin rajaynayaa guulistaan waxaan rajaynayaa dad fara badan oo Soomaali ah in codkooda idin siin doona haddii aan idmo barnaamijkan guud ahaan waxaa soo dabarday Xalwo Cali anigu Cabdi Axmed Midnimo studio fadhiya barnaamij halkan ayaan ka daadiinayay aad baan kugu mahadcelinaynaa anoo ku hadlaya magaca wariyaasha idaacadda Voice of Oslo si gaar aan kugu mahadcelinayaa Maxamed Dalmar شلوا كم هالعلة إن شاء الله. ياد بني هالعلة ما سنتين عارفين إن شاء الله. إن شاء الله لو ذي ما هالعلة يا قول بيدير الجنيا إن شاء الله سلوك كلام قال بيدير إن شاء الله حلو وقدمتي. أبد ما هالسنت هاي مني يو دلمر حلوان دلمر رنتي أبى وقف رحسن ما أنت كلهم كذا أدنى لقاعدتي أصحابته هودا نقل دقي سنيسة هو مقال كأي سيدو كلا كوا لايف كبا وحن لنا هاي طبعا تاني انت كل من دون برنامج كان لميدو حاني كاga tagayna anagu isku duman sidaas iyo nooli kulant milida aada ku okiyo mibada adareeyo inta jooga meeldo maralo ma waaye milida aada ku okiyo mibada adareeyo inta jooga meeldo maralo ma waaye madi waxay u daran tahay marka shalay adoo nacay madi waxay u daran tahay marka shalay adoo nacay manta uu keena yadima arweyda manaxo jacay